wararka laga helayo loo kalsoonaan karo ayaa sheegaya in kulankii xasaasiga ah ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku go'aansadeen in si rasmi ah u taageeraan gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe si uu u noqdo musharaxa ugu weyn ee xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Go'aankan ayaa muujinaya in dowladda dhexe ay si cad u doonayso in ay door muuqda ku yeelato jihada siyaasadeed ee maamulkaasi. Dhinaca kale حسين شيخ محمود oo ah la taliyaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale ka mid ah xisbiga JSB ayaa isna si xoogan uga dhex muuqda tartanka isagoo taageero ka helaya xubno ka tirsan isla xisbiga JSB iyo siyaasiyiin kale oo aan ku qanacsaneyn sida dowladda federaalka Soomaaliya ku wajahayso arrintan. loolanka u dhaxeeyo labadan siyaasi ayaa laga cabsi qabaa in uu sii horiyo kala qaybsanaan siyaasadeed oo horle. qorshaha dowladda federaalka ee ku aadan in la hirgeliyo doorashooyin toos ah oo lagu xulayo xildhibaanada heer deegaan iyo heer dowlad goboleed ayaa noqotay arrin kale oo dood badan dhalisay. inkastoo nidaamkan loo arko mid horumarineed haddana waxaa jira shaki weyn oo ku saabsan sidoo uu dhaqan geli karo iyadoo ay jiraan caqabado amni iyo kuwa siyaasadeed oo weli taagan. mucaaradka dalka ayaa durba bilaabay walaac xoogan iyagoo ka digaya in faragelin siyaasadeed ay horseedi karto doorasho aan loo dhammayn. qaar ka mid ah waxa ay si cad u sheegeen inaysan aqbali doonin natiijo kasta oo u arkaan mid lagu shubtay ama hore loo sii qorsheeyey, taasoo sare u qaadaysa suurtagalnimada khilaaf horle. xaaladda Koonfur Galbeed ayaa hadda u muuqata mid go'doomin karta jihada siyaasadeed ee dalka guud ahaan maadaama ay saameyn ku yeelan karto xiriirka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale kalsoonida nidaamka doorashooyinka ee Soomaaliya. tartankan socda wuxuu noqon karaa mid xasaasi ah oo u baahan maarayn siyaasadeed oo taxadar leh si looga fogaado xiisada sii fidaya. Koonfur Galbeed ayaa wajahaysa xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan kadib markii xilka laga qaaday madaxweynihii hore Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, taasoo si degdeg ah u furtay loolan adag oo ku saabsan cidda hoggaanka la wareegi doonta. isbeddelkan ayaa yimid xilli ay horeba u jireen khilaaf siyaasadeed iyo kala aragtiduwanaansho ku saabsan hannaanka doorashooyinka. waxaa sidoo kale jira xogo dheeraad ah oo ka imaanaysa ilo siyaasadeed oo Muqdisho ku sugan kuwaasoo tilmaamaysa in arrinta Koonfur Galbeed ay ka badan tahay kaliya loolan musharaxnimo balse ay tahay isku tijaabin awood siyaasadeed oo u dhexeysa filla Soomaaliya, xisbiga JSB iyo siyaasiyiinta mucaaradka. warar kale ayaa sheegaya in dadaalo xasaasi ah oo wadahadal ay u socdaan si loo yareeyo xiisadda, gaar ahaan iyadoo la isku dayo in musharaxiinta qaar lagu qanciyo tanaasul ama in la mideeyo taageerada si looga fogaado kala qaybsanaan gudaha ah oo dhaawacda xasiloonida maamulka. si kastaba ha ahaatee weli ma jiro heshiis rasmi ah oo la shaaciyey. dhanka kale khubaro siyaasadeed ayaa tilmaamaya in tartanka Koonfur Galbeed uu si toos ah u saameyn karo qorshaha dowladda federaalka ee ku aadan doorashooyinka tooska ah, maadaama hirgelinta nidaamkaas ay u baahan tahay kalsooni siyaasadeed iyo iskaashi dowlad goboleedyo oo xoogan. haddii khilaafkan uu sii bato waxaa laga cabsi qabaa in uu dib ugu dhigo jadwalka doorashooyinka la qorsheynayo. sidoo kale waxaa jira walaac amni oo sii kordhaya iyadoo deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed ay weli ka jiraan caqabado la xiriira sugidda amniga iyo awoodda maamul ee dowladdu ku gaari karto. arrintan ayaa ka dhigaysa in tartanka siyaasadeed uu si fudud u yeesho saameyn amni iyo mid bulsho. falanqeeyaal ayaa sidoo kale sheegaya in haddii aan la helin dhexdhexaadin siyaasadeed oo degdeg ah ay suurtagal tahay in loolanka hadda socda uu isu bedelo khilaaf sii daba dheeraada oo saameeya xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka.